بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka ساعدك آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا كتحان channelkeena ساعدك آخره. كسو دوادا قصدي تحنا هيدي iyo qaybteedii sagaalaad qaybtii sideedaad ee tan ku horeysay waxay noo mareysay gabadh walaasheen ahayd oo aabaheed uu afduubtay oo geeyay magaalada Baxardaar kaniisadna uu ku xiray qolada kale ee baadariinta joogtay kaniisadana isku dayeen in ay markaasi diinteedu ay ka baxdo oo jirdil iyo garaac dhibaato badan u geysteen markii dambana ay gaajo ku saarantay ilaahayna uu bixiyay nin muslim ah oo boolis ugu yeeray sidana kaniisada looga soo badbaadiyay raashin iyo lacagna ay soo siiyeen ilmaheedana nabad kula kulantay hadaba ku soo dhawaada qaybtii sagaalaad raxmo oo qisadeeda ka sii waramaysa waxa ay tiri aabahay dhibkii ugu hayay igama joojin haddana dagaal kale oo dhinaca shaqada ayuu igu soo qaaday wuxuu yimid magaalada Dabrazeeti aan ka shaqeynayay mulkilihii hoteelka aan u shaqeynayay ayuu u yimid wuxuuna ku yiri gabadhan diinteena Kirishtaanka ah ayay ka baxday oo muslim ayay noqotay iyada wax baahi ah oo ku kaliftay jirina muslimiinta ayay dawarsataa anagu Baxardaar hanti aad u badan ayaan ku leenahay guriyo gawaari hotel iyo hanti kale oo aad u badan isagoo markaasi qolada hoteelka iska leh oo Kristaan ah ku beer jilicsanaya wixii inta ka dambeeyay qoladii hoteelka lahayd ee Kiristaanka ah waxay ugu soo rogeen amaro iyo cunaqabatayno ay kamid yihiin in aan surwaal iyo shaar xirto oo xijaabka iska tuuro salaadna aan dukan maadaama loo sheegay inaan muslimad ahay waagi hore waxaan xiran jiray goono dheer iyo cabaayad iyo asturaysa shaqadeydana sida ayaan ku watay hoteelka qof muslim ah kamaba shaqeyn jirin in uu ka shaqeyn asal ahaanba looma ogolayn laakiin anigu waan isqalin jiray xijaabkii waa la ii diiday salaad inaan goobta shaqada ku dukan karin ayaa la ii sheegay mushaarkayga in lacag badan laga jaro joogto ay noqoto oo waxyaabo kala duwan loo sababayo dib hor leh oo dhinaca diintayda oo tan iigu darana iyo culays dhinaca nolosha ayaan la kulmay marka waxaan bilaabay in aan isciilo oo aan ooyo mar kale haddana waxa iga xanuunsaday wiilkayga curadka ah ee Xabiib sidii loo qaban jiray ayaa loo qabtay gabar aan saaxiibanahay oo maami lagu magacaabo oo dibadda ku nool ayaan u sheegay in uu wiil iga xanuunsan yahay waxaan ku daweeyanahayn khayr Allah siiyay $150 ayay markiiba xawaalada igu soo dirtay oo aan wiilkayga xanuunsanaa ku daweeyay ilaahina uu caafimaadiyay lacagta xawaalada la igu soo diray markaan soo qaadanayay wiil muslim ah oo Ismaaciil lagu magacaabo oo lacagta siinayay ayaa xaaladeyda iga wareystay oo xogtayda oo dhan aan uga waramay wiilkii muslimka ahaa ayaa akhbaartayda muslimiin badan gaarsiiyay rag iyo dumarba si ay caawiyaan kadibna muslimiin ahlu khayr ah ayaa ila soo xiriirtay waxayna ii sheegeen inay caawinayaan ilmaha agoonta ah waxbarashadoodana ay kafaala qaadayaan kirada guriga oo 3 bilood ayaana la iga bixiyay bishii ugu horeysayna xogaha lacag raashin ayaa la ii dhigay balse waxa Addis Ababa haddana igu soo maray dib wixii hore oo dhanba ka daran runtii waxaa ku dhacay raxmo oo ka sii waramaysa waxay tiri guriga la ii kareeyay wuxuu ahaa mid uu qof ay tabar hayso uu degi karo koronto ma laha biyo ma laha anigana wax ma arko dhibaato hor leh oo nololeed ayaa soo wajahday waxa marna soo martay ay tiri 45 maalmood oo aan dab shidanin oo aniga ilmahayga gaajo darteed la kici weynay ilmaha saddexdaba way iga xanuunsadeen gaajada qabatay darteed aniga lacag aan ku daweeyo ma hayn kirada guriga xataa muslimiin ayaa naga bixisa wax waliba way igu sii adkaadeen haddii aan reerkayga ku noqon lahaa amaanadii Axmed iyo ballantii aan ka qaaday ayaa i hortaala qof korsadana ilmaha ma siin karo oo dardaarankii aabahood wuxuu ahaa cidnaha iga siinin markii dambe markaan nafta ilmahayga iyo aniga baan u yaabay masaajid iyo dhawaayaan tagay xilligaasi cidna ma joogin oo masaajidku uu xirnaa oo aan ka ahayn nin waardiye ah oo Shariif lagu magacaabo waxaan ku yiri Shariif wadankan muslim ma jooga miya wuxuu igu yiri way joogaan muslimiin haddaba haddii ay muslimiin joogaan ilmahayga gaajo ayay iga dhiman rabaan bari haddii ay dhintaan kullay way ila aasil haayeen marka ilmahayga maxay wax uga qaban laayihiin way iga dhiman rabaan ayaan mar labaad ku celiyay Shariif wuxuu u tagay nin Cabdiraxmaan lagu magacaabo oo rootiga iibiyo ninkii wuxuu u soo dhiibay lacag 150 oo wadankaasi laga isticmaalo wuxuuna ku yiri ilmaha Allah u caafiyo intaan iga gaarsi waardiye masaajidka ee loo soo dhiibay 150 ka bir ayaa Cabdiraxmaan ku yiri inta aan lacag 150 u geyn lahaa waxa kala quruxsan inaad ilmaheeda iyo iyadaba aad soo aragtid lacagtana aad adigu sadaqaysatay faraha ka saarto Cabdiraxmaan taladii Shariif ayuu yeelay wuxuuna noo yimid saddexda caruurta kii u yaraa oo aan dhabta ku hayo iyo aniga iyo labada weyneed oo wada ooynayno ilmaha markuu arkay Cabdiraxmaan caruurtii u soo ururiyay bajaaj ayuu ku soo qaaday wuxuuna u qaaday xarun caafimaad oo nagu dhaweyd xaruntii caafimaadkana waxay dhaheen caruurtan waa caruur dhimatay bal in dawo loo helo isbitaalka ugu weyn magaalada ee Duqanbasa geeya isbitaalka markii la geeyayna saddexdoodiba waxa laga helay mandhiciirka oo gaajo darteed u laabmay ama shaqadii u joojiyay raxmo oo u ducoonaysa walaalkeen Cabdiraxmaan waxa ay tiri walaalkeen Cabdiraxmaan jannatul firdaws Allah ka waraabiyo sida uu jecel yahay oo khayr ahna Allah u yeelo
ubadkana allah u barakeeye wanaaga uu sameeyay ilaahay khayr iyo wanaag ha ugu bedelo caruurtii si fiican ayuu igu daweeyay dawadooda iyo raashinkooda 15 maalmood oo isbitaalka yeeleen isaga ayaa dawoolayay tiri bil ramadaan ayaa dhalatay kadib cabdiraxmaan masaajidka ayuu ka istaagay isagoo ooynaya wuxuu yiri gabar walaasheena oo dhibkeeda ilaahay mooyee aan cid kale u sheeganayn ayaa dhexdeena iyada iyo caruurteeda ku dhimanayaan ilaahay dartii aan wax uga qabanno ayuuna ku dhahay walaalaha muslimiinta oo rag iyo dumar bale masaajidka ku sugnaa wuxuuna sii raaciyay rag iyo dumarba muslimiinta waa inay ilmahaasi agoonta aynu tusnaa inaan waalid iyo walaal iyo ehel u nahay oo jecel siina waa yatiimiin 3 oo wiilal ah aabahoodna ilaaha oofsaday gabadha miskiinta ah mooyaane ehel iyo qaraabo kalena malahan ayuu yiri muslimiintii rag iyo dumarba si hagar la'aan ah ayay igu soo gurmadeen alxamdulillah ilmihii iyo anigaba waana nooleeyay wixii markaa ka dambeeyay raxma markay xaaladeedu halkaasi marayso gabadha muslimaada oo isxilqaamay ayaa waxay bilaabeen in ay raxma geeyaan goob qur'aan saar ah si indhaheedu una xal ay ugu raadiyaan halka ay noo joogto qaybtii 9aad ee qisadii walaasheen وإنه قيبتا طبنادا إيو channelka ساعدك آخره إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد